kusoo dhawaad marka barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsanaa doonaa suuqa kala iibsiga iyo ciyaartooyda iyo sida kooxaha u kala iibsadeen. Marka ugu horeysa intaan barnaamijka bilaabin, like iyo subscribe-ka waa dhankiina ha iloobinina, notification-ka inaad saatiin saa u heshiin muuqaalka marka aan saas soo dhigo. Marka let's go. kooxda Chelsea waxay la soo saxiixatay Raheem Sterling. Raheem Sterling waa done deal. ciyaartooygaas wuxuu ka soo tagi doonaa Manchester City, sidoo kalena wuxuu u saxiixi doonaa kooxda ka dhisan London ee Chelsea. ciyaartooygan ayaa muddada ugu dambeysay benjiila noqday oo wuxuu u baahan yahay inuu ciyaaro xulkiisana hadhow u safto. Marka uu ka soo tagay oo wuxuu hadda u saxiixi doonaa oo maaliyad u gashay doonaa Chelsea. ciyaartooygan soo maray Liverpool, City, haddana yani u ciyaari doona Chelsea. kooxda Chelsea waxay la sheegay sidoo kale inay rabto Ronaldo laakiin lama maleynayo inuu ka sii ciyaari doono Premier League hadduu ka tagay United. kooxda United taariikh weyn uu ku leeyahay, mar rabo inuu sumcadiisa iskaga ciyaaro iyo taariikhdiisa lajanimo. marka wuxuu rabaa inuu Premier League ka hayaamo meel kale tago. PSG lacag way haysaa laakiin muu maleynayo Messi inuu hoos tagi doono. Messi waa la ogyahay hadduu Messi tago, Messi asaga waxa waa xifaaltankoodii xiisa ma yeelan doonaan. marka wuxuu rabaa Bayern Munich. sidoo kale waxaa la sheegaya inuu xiriir yani ay ka dhaxeeyso hoosaad ah asaga iyo Real Madrid, oo waxaa laga yaabaa inuu Real Madrid u tago. ciyaartooyga Chelsea Lukaku ayaa ka tagay loan ahaan uga tagay, yani amaah ahaan uga tagay, wuxuuna ku biiray kooxda Inter Milan, kaasoo ay sanad ka hor kusoo iibsadeen Chelsea 100 milyan ay ugu soo iibsadeen Inter Milan. sanadkanna wuxuu ugu tagay wax raqiis oo 10 milyan ay ugu tagay oo kaasoo amaah ah waliba. marka Inter Milan waxaa la dhihi karaa ciyaar yani fiican ciyaartay oo waxa waaye laacibkaas 100 milyan ka bixisay hadda wuxuu kusoo iibsatay 10 milyan kaliya oo raqiis ah. yani sanadka dambe waxa laga yaabaa inuu ka tago ku laabto yani Chelsea. Arsenal saxiixii ugu dambeeyay Gabriel Jesus oo ahay ilaa haddana suuqa lama hubo ciyaartooy kale ay la soo saxiixanayso, laakiin waxay ku dadaalayaan in la soo saxiixdaan ciyaartooy badan. Gabriel Jesus uu ciyaaray maalin dhaweed ciyaar saaxiibtinimo wuxuuna dhaliyay 2 gool oo dhaliyay. kooxda ayadoo lagu leeyahay 2 gool ayaa la soo geliyay half time-kii labaad, gool cajiib ah ayuu dhaliyay. marka Gabriel waxaa la dhihi doonaa sanadkan waxa waaye Arsenal oo si fiican u caawi doonaa. Manchester United ilaa hadda waxaa la hubaa inay hal saxiix la soo saxiixatay Tyler, wiilkaas dhalinyarada ay ka soo qaatay Van Rion. ilaa hadda lama oga ciyaartooy kale yani oo la dhihi karo way la soo saxiixanaysa oo waa la hubaa 100% ma jiraan. laakiin waxaa la hubaa sidoo kale inuu u imaan doono Christensen, kaasoo ciyaari jiray Tottenham, Brentford u ahaa yani sanadka ugu dambeeyay ciyaartooy. marka waxaa la hubaa kaas inuu ciyaari doono oo waxaa leeyahay caafimaadka ayaa u dhiman kaliya. sidoo kale waxaa la sheegaya Ronaldo inuu ka tagi doono. Ronaldo wuu diiday inuu yani United la ciyaaro oo tababarka imaado. marka waxaa la sheegaya xanta la sheegay suuqa waxay tahay inuu Ronaldo tagi doono. marka Ronaldo markuu ka tago ciyaartooy badan ay ka tageen, Pogba uu ka tagay, Mata iyo sidoo kale ciyaartooy badan ay ka tageen Manchester United sanadkan. marka lama ogi ilaa hadda ciyaartooy yani boosaskaas buuxi doono inay la soo saxiixdaan. United si weyn waxay u raadinaysaa Frank de Jong, kaasoo ay rabaan inay la soo saxiixdaan Barcelona ka soo saxiixdaan. sida la sheegayo wararka la sheegay waxa Barcelona madaxweynaha ayaa hadla wuxuu yiri anaga ma doonayno inuu naga tago Frank de Jong, waxaan rabnaa ciyaartooygaas inuu noo sii joogo oo ciyaartay xul ah oo waan u baahanahay. wararka la sheegay waxay sheegayaan in Frank de Jong uu rabo inuu sii joogo kooxda Barcelona oo uu ku qanacsan yahay oo rabin inuu ka ciyaaro yani Europa League, Champions League qof haysta inuu ka ciyaaro Europa League oo rabin. taas ay leeyihiin dadka qaar. kooxda sidoo kale Manchester City ayaa waxay la soo saxiixatay ciyaartooy inaba caadi ahayn oo xul ah sanadkan waxay la soo saxiixatay horaantiisii Haaland, ogtihiin ciyaartooy weyn inuu yahay oo yani da'yar oo goolashana tafku ah, waxa weeraryahan inaba caadi ahayn. sidoo kale waxay la soo saxiixdeen Calvin Phillips oo Leeds u ciyaaro, asagana inaba caadi ma aha, ciyaartooy xul ah qadka dhexe. kooxda sida weyn u soo adeegtay sanadkan waa kooxda Tottenham. Conte sanadkan wuxuu rabaa inuu dhiso, si fiican u dhiso rabaa. ciyaartooy xul ah waxay ka soo gateen Everton oo Richarlison dhaho, haddana wuxuu xirtay number 9 uu xirto waa ciyaartooy afka hore. Foster oo Southampton ka soo imaaday, sidoo kale Basuma oo Brighton iyo Ivan oo Inter Milan. marka kooxdaas sanadkan way dhaarsan yihiin. yani Conte wuxuu rabaa sanadkan inuu dhiso Tottenham adag. kooxda Real Madrid ayaa si fiican u soo adeegtay sanadkan, 2 ciyaartooy xulna way ku soo adkaysay kooxdeeda yani aad ku adag.
Rudigerson ay kasoo qaatay Chelsea, sidoo kale cunug yar oo 22 jir ah ay soo qaadatay oo la dhaho Tchouameni oo qadka dhex ka ciyaari doona. waxaana la sheegaya inay rabaan sidoo kale ama heshiis hoosaad la gaari doonaan Ronaldo ayaa wuxuu rabaa inuu ku laabto Real Madrid maadaama ay Manchester United ay ka ciyaareen Champions League. maanta wararkeena intaas ku egyahay, ha iloobin inaad like, subscribe, inaad saartiin, sidoo kale notification-ka waa muhiim si kugu soo dhaco warbixinada aan soo geliyo insha Allah.